السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو برنامج كديري قالين موضوع ما انت وفرحدة وجهاga fur qosol ama dhoola cadee maxaa yeelay qofka wejigiisu furan yahay marnaba ma xanaaqo waxa xunna markuu arko uu ku farxaa qodobka labaad dadka iska weynaysiinin maxaa yeelay dadku way neceb yihiin qofka isqadqaadka badan qofka hadduu arko qof taajira oo dadka aan iska weynaysiinayn way ku farxayaan xanaaqin mar walba maxaa yeelay qofka saaxiibka ah ama markasta kula jooga weligaa kaama xanaaqayo ilaa uu kula yaabo la dhaqankaaga fiican weligaa ha ka istaagin shay aad isleedahay uu ku farax gelinayaa ama shay aad isleedahay dhibtiisa ka yar dheeftiisa ama shay aad isleedahay ummadda oo dhan ayuu farax gelinayaa farax oo dhoola cadee maxaa yeelay nebiga sallallahu calayhi wasallam nebigu ma ahayn mid xanaaqsan ama weji xirxiran wuxuu ahaa mid qof kasta oo yimaada u dhoola cadeeya hana hilmaamin daawade in qofka ugu fiican ee qof bini'aadana lagu daydo inuu ahaa rasuulkeeni sallallahu calayhi wasallam wasalaamu calaykum waraxmatullah